السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaan ku sugannahay waa Dansam TV. Dansam TV studio waxaa martino waa marti sharaf qaali ah oo ka timid daafaha Yurub nagu soo booqday magaalada Ten Oaks. ugu horeeyaan markuu ugu horeyso waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo si guud ahaaneed. waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo TV Dansam TV ku soo dhawaada. ودونا كما دعلنا إن شاء الله. ودونا ماشي أنا سلام. sidaad daawadayaal sidaad ogtiinba waxaan rabaa markuu ugu horeyso inaan idin bandhigo gacanta qaybteeda midigta waxaa fadhiya abwaan fanaan Bashiir Cali Xuseen oo ahaa fanaan iyo abwaan qaran muddo horena ku soo jiray fanka iyo abwaannimada Soomaaliyeed. kole waxaan rajayn doonaa intiina garanayso hore u garanaysay inta dambana inay si fiican garan doonaan waraysigana kulay uu noo soo geli doonaa insha Allah. waxa kale oo nagu weheliya alfanaan Cabdi Baadil Ibrahim oo idinkoo dhan taqaaniin ahaa fanaan qaran Soomaaliyeed tan iyo dalkii burburkii kadibna uu soo wareegay qurbaha muddo badan ku sugnaa. kole asagana waxaad uga daawan doontiin waraysigiisa ayaad uga daawan doontiin. waxa kale oo geeskayga kala fadhiya bidixda sidaad ogtiinba samafale Faysal Cabdisamed ah nin u adeega mujtamaca Soomaaliyeed isla markaasna ah saxaafi Soomaaliyeed ahna aqoon-yahan Soomaaliyeed asagana wuxuu qayb ka noqon doonaa barnaamijka waraysiganaga. waxa kale oo nala jooga studio-ga maanta qoraa aqoon-yahan Xuseen Maxamed Cabdulle Wadaad gudoomiyaha Laashin oo nagu soo booqday kana soo qayb galay barnaamij lagu qabanaya magaalada Aarhus ay qabanayaan jaaliyada Soomaalida qayb ka mid ah. waxaan leeyahay ku soo dhawow adigana. waxa kale oo asagana nala jooga walaalkeeyo Xasan Cabdulle Calasow Shiribmaal oo asagana ah qoraa Laashin ah isla markaasna u adeega xubin ah bahda Laashin ahna qoraa Soomaaliyeed. waxaan leeyahay ku soo dhawow studio Dansam TV. waa ku dhownahay waana mahadsantiin. waxaan kaloo hadal hilmaamka ma tago waxaan hilmaamay samafale Faysal Cabdisamed inaan si gaar ahaaneed ugu soo dhaweeyo studio-ga ku soo dhawow Faysal. waa dhawahay mutaati. daawadayaal waxaan u gudageli doonaa barnaamijkeega wuxuu ahaan doonaa su'aalo shacabka Soomaaliyeed ka guuxaya waa aniga laftigeyga aan ka mid ahay isla markaasna ugu talagalay su'aalahaas oo dhextaal ah. su'aalahaas baa waxaan rabaa inaan mid u weydiiyo ayaga ka jawaabi doona. su'aasha ugu horeysa waxay tahay maadaama aad soo booqateen magaalada Aarhus sideed u aragteen guud ahaan dadka reer Aarhus iyo waliba dadkii maarkino idin fidiyay casumadda magaalada. bismillaahi raxmaani raxiim. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. dadka reer Aarhus waa dad aad u wanaagsan. waxay nagu casumeen festivalkooday nagu casumeen waan ka soo qayb galnay si fiicanna wuu u dhacay. soo dhoweyntii iyo isxilqaankii ay annagu noo sameeyeenna ma aha mid aan abaalkeeda gudi karro. waa uga mahad celinaynaa. barnaamijkana wuxuu u dhacay sidii loogu talagalay. waana barnaamij loo baahan yahay in sanad walba la soo celceliyo oo carruurta dhaqanka iyo afkooda hooyo ay wax uga fahmaan. marka waad ku mahadsantihiin soo dhoweyntii si guud baanu leenahay. waadna mahadsan tahay su-aasha aad na weydiisay. wuxuu ahaa abwaan fanaan Bashiir Cali Xuseen oo ku cabiray aragtidiisa habkii loogu soo dhaweeyey magaalada Aarhus. haddana waxaan microphone ku wareejinayaa Cabdi Baadil fanaan ku soo dhawow. waa mahadsantihiin dhammaan intana daawanaysa iyo inta dhegaysan doontaba. waxaanu joognaa Denmark Aarhus. waxaa isxilqaamay dad dhallinyaro iyo odayaal isku jira iyo haween dhammaan isku duuban ururo kasta haddii magac walba ha la baxeene ayagoo isku duuban waxaanu leenahay hambalyo. wax walbo aad nooga baahataanna diyaaraanan leenahay. su-aashii aadna weydiisay ah sidaad u aragtaanna si fiican bay u dhacday. axaddaana inoogu dambaysa oo berri ah. marka waan ka mahad celinaynaa. waxaan u aragnaa dad isku duuban oo Soomaalinimo iyo wadaninimo iyo taariikh fiican ay ka muuqato insha Allah. halkiina ka sii wada dadaalka. waxaan si gaar ahaaneed haddana u siinayaa qoraa aqoon-yahan Xuseen Maxamed Cabdulle Wadaad
guddoomiyaha laashin oo ah qoraa soomaaliyeed kusoo dhowo. aad u mahadsan tahay. bismillahi raxmaan raxiim. marka hore waxaa aad ugu mahad celiyaa runtii tv-ga dansan wakiil ka yahay maanta uu nala joogo mudane matoote oo runtii nagu casumay inaan maanta soo booqano xaruntooda waraysigan naga qaado. aad ugu mahad celiyaa anoo ku hadlaya magaca hoyga raadraaca dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed ee laashin. waxaan ka mahad celiyaa booqashada aan ku nimid runtii magaaladan Aws ee wadanka Denmark oo nagu casumay jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan oo runtii markaan martiqaad kalena anagana aan aqbalnay imaashada aan nimidna sida walaalkii hore u sheegay si wanaagsan oo qurux badan noo soo dhaweeyeen. barnaamijka ay ku tala galeen wacyigelinta ee toddobaadka dhaqanka ahna si qurxoon u dhacay. runtii aadan ugu mahad celin inshallah waana ku faraxsannahay booqashada aan ku nimid iyo tv-ga quruxda badan ee maanta aan soo booqanay ee barnaamijkan waraysiga aan la yeeshay. aad u mahadsantiin inshallah. aad baan kaaga mahad celinaynaa sidoo kale. waxaan markaan noo siinayaa mayga xasan cabdullaahi culusow shirmaal. dadku marka waxaa laga yaabaa jiilkii qaxi ka dambeeyey inaysan fahamsanayn kelmadda shirmaal. waxay ahaan doontaa su-aalaan weydiin doono shirmaal balse oo usoo laaban doona waxaan rabaa inaan siiyo qoraaga laashin xubinna buuxdana ka bahda laashin kusoo dhowo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. salaan kadib waxaan u mahad celinayaa bahda telefishinka Dansom TV. sidoo kale waxaan ka mahad celinayaa soo dhaweyntii diiraneed ee ay noo sameeyeen jaaliyadda Soomaaliyeed guud ahaan ee ku nool caasimadda labaad ee wadanka Daanishka amba Denmark ee Aws. run ahaantii wuxuu ahay toddobaad qiimo badan oo dhaqanka iyo hiddaha iyo afka iyo suugaanta Soomaaliyeed lagu soo bandhigayay ayna ka soo qayb galeen haldooro iyo aqoon-yahano iyo qorayaal iyo culamaa udiin kala duwan oo daafaha Yurub isaga yimiday. marka run ahaantii fursadan uuna siiyey telefishinka Dansomna aad iyo aad uga mahad celinaynaa. barnaamijkana waa ku dhownahay waan soo noqon doonaa. aad baan kaaga mahad celinayaa abwaan shirmaal. magacaasana kuula baxay dabcan hadduu iga horreeyeen waxaan leeyahay waa ku sitaa kudriya bidaayada. markana dad badan waxay yaqaanaan Faysal Cabdisamed Faysal Karate, laakiin run ahaantii dadku ma ay yaqaanaan shaqada baaxadda weyn uu qabto haddii aan lahayd dhanka social media, haddii aan lahayd bini'aadanimada, haddii aan lahayd samafalka abaaraha iyo waxyaalaha la midka ah, haddii aan lahayd dadka bukaanada ee lagu xiro isbitaalada markiinoo shaqo badan bulshada u haya. Faysal waxaan leeyahay maadaama aan isku cusbeen anigu kusoo dhawow Dansom TV markana. asalaamu calaykum. waa ku dhowaahay dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa marka ugu horeysa shacabka Soomaaliyeed oo na daawanaya barnaamijkeena arki doono qof walba goortay u tahay, hadday ku tahay habeen, hadday ku tahay maalin. marka waxaan leeyahay waa in salaamay ummadda Soomaaliyeed soo dhawaada. waxaa geesayga fadhiya saa u jeedin dad aad iyo aad u qiimo badan bulshada Soomaaliyeedna magac ku leh oo casumaad aad iyo aad u heer sareysa lagu casumay wadanka Denmark gaar ahaan caasimadda labaad ee magaalada Aws. dadkaas waxaa ka mid ah marna saaxiibkay marna walaalkay ah Bashiir Cali Xuseen. waxaa ku xiga walaalkay kaleeto Cabdi Baadil Ibrahim, asagana walaalkay saaxiibkay ah oo derisna aan ahayn. waxaa ku sii xiga labadeeda abwaan ama dhakhtarkeena weyn Xuseen Wadaad oo ninkaas ah Xuseen Wadaad dadka macnaha bulshada aad u ololeeya buwaag badan qoray. barnaamijyadiisana ay ka mid yihiin barnaamijyada ugu tayada badan ee dadka soo gudbiyaan. waxaa dhinacayga kala fadhiya walaalkii Xasan Shirmaal oo labadaba macnaha aad iyo aad uga shaqeyn arrimaha laashin ururka ama fooin waxaan u naqaano oo ah qayb ka mid ah ayaga xataa qaybabka bulshada wacyigeliyaan. waxaan leeyahay walaalayaal ku soo dhawaada wadanka Denmark gaar ahaan caasimadda meesha. waxaan kaloo halkan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan dadkii macnaha dadkan walaalaheen casumeen kuna casumeen in ay bulshada wax fiican oo wanaagsan u bandhigaan. marka waxaan leeyahay bilaash leynima casumeen waxaa tihiin dad macnaha bulshada matali kara. ku soo dhawaada magaaladan daadis macnaha leynii doortay dhammaan fanaaniin abwaano iskugu jirtiin iyo dad bulshada leh. waxaan leeyahay soo dhawaada mar kaleeto. aad baan uga mahad celinayaa dhammaan marti sharafta. waxaan u gadagali doonaa su-aalaha iyaga.
barnaamijkana waxaa hadal hilmaam kuma jiro waxaa daadahinaya cabdiraxmaan axmed shariic cabdiraxmaan matoote. Waxaan markan su-aasha aan dhex dhigi doonaa banalka ama dadka maarkin oo goobta ku sugan marti sharafta ah. Su-aashan waxa ay ka hadlaysaa waayihii wacnaa ee Soomaaliya. Dadku markii la dhaho waayihii wacnaa waxaa fahmi kara qofkii markaa asaga Soomaaliya ku sugnaa 91 iyo wixii ka horreeyey. Dadku way soo qaxeen, waxaa la imaaday burburkii, waa la soo qaxay, daafaha dunida la imaaday, waxaa loola imaaday dhaqamo kale, waxaa loola imaaday waxyaalo kale oo maarkin oo nagu noqday maarkin oo filanwaa. Marka waxaa laga yaabaa qof walba inuu si u guuxayo oo maarkin oo si u fikirayo oo bulshada. Marka waxaan rabnaa inaan ku cabirno su-aasheena dhahno waayihii wacnaa iyo hadda oo aad ku sugan tahay qurbaha sidee u aragtaa. Waxaan ka bilaabi doonaa gacanteeda midig abwaan alfanaan Bashiir Cali Xuseen, kusoo dhawo. mahadsanid mar kale. xilliyada hadda aad sheegayso ma aha kuwo la isbarbar dhigi karo, waayo xilliyadii birisamaadkii dowladda dhexe shaqaynaysay waxay ahayd nolol tan maanta lagu jiro ka duwan ayaa ka jirtay halkaas. qof walbana wuxuu joogay dalkiisa, dhib iyo dheef wuxuu ku qabayba wuxuu la joogay dadkiisa, dalkiisa ayuu ku dhex noolaa, wuuna ku faraxsanaa. waa la soo qaxay, qurbo ayaa la yimid. qurbaha marka la yimid isbeddel weyn baa dhacay oo carruur iyo waayeelba saameeyey. waa dareemaysaa waxa burburay dad dhintay oo keliya ma ahayn, daaro oo burburay keliya ma ahayn, waxaa burburay dhammaan akhlaaqiyaadkii ay ummadda lahayd oo dhan ayaa burburay. taasina cid kasta ayay saamaysay. hadda waxaa la joogaa qurbaha. Soomaali inteedii badnaydna waxay jirtaa dalkii. meeshaas waxaa ka dhex dhashay is-afgaranwaa xagga dhaqanka ah, xagga luuqadda ah, xagga diinta ah, wax walba ayaa saameeyey. marka waxaan leeyahay aniga dhibaatadaasi hadda carruurta yaryarka ah ayay aad u haysaa oo uu afkoodii hooyo uu ka qarriban yahay. waxaa dhibta ay saamaynaysaa waayeelka oo ay daltabyo wax la yidhaha ay hayso. kulli waayeelka oo dhan dalkoodiibaa hor yaalla oo ay rabaan ay dib ugu noqdaan. marka waxaan leeyahay dhibaatada waa dhibaato guud oo loo wada dhan yahay. waxaanse leeyahay waxay u baahan tahay adkaysi iyo isugurmad iyo ogaasho in dib loogu naaqdo dalkii hooyo. in wax la bartana meesha waa lama huraan bay u tahay. waxbarasho la'aan waxba soo kordhi maayaan. marka waxaan leeyahay Soomaali ha noolaato, ha israacdo, dib ha isugu midoodo. mahadsanid. isla su-aashii ayaa waxaan rabaa inaan markaana siiyo abwaan fanaan Cabdi Baadil. waa mahadsantahay. marka hore ku salaamayaa dhammaan bahda telefishinkana waa salaamayaa. arrintaasi dad badanaa ka jawaabay, fanaaniin badanaa ka jawaabay. horta dadka wax qaadanaya waa shacabka, dadka wax waanada qaadanayana waa shacabka, dadka dalka burburiyeyna waa shacabka, dalka dadkii hagaajin lahaana waa shacabka, dhibka waxa wadana waa shacabka. haddii ay dhibka joojiyaan waddanka wuu hagaagayaa. haddii ay sii wadaanna sidan u baan ahaanayna waxa soo qaxayna waa isla shacabkii. marka waxaan u arkaa arrin inkaar nagu dhacday oo ah wax badan oo mataqaanaa Soomaaliya ka qaldan dhinaca siyaasadda in la toosiyo ayaan u arkaa. midda kale anigu Cabdi Baadil ahaan waxyaabaha igu daran waxa weeye dad ayagii dagaalsan oo haddana raba inay ayagii wax toosiyaan. arrimaha igu daran ee aan la yaabo waa taas. dad ayagii dagaalsan oo la yidhi dad heshiisiya ayagaan heshiisna ahayn. taas waa tan igu daran. qurbahana fanaaniinta hore u dhaheen dal aan dalkaaga ahayn dareenku joog waaye. markaan soo qaata dhinaca banaadiriga marka annagu dhibkaasaan haysta. haddaanu fanaaniinnahay annagu heshiis baanu nahay, suxufiyaashu waa heshiis, laakiin shacabka waxaan ka dalbanaynaa inay heshiiyaan, dalkoodana u heshiiyaan, siyaasaddoodana ku heshiiyaan. waa mahadsantahay. abwaan aad baan kaaga mahad celinayaa. waxaa ku soo laaban doonaa su-aal kale. waxaan rabaa markaana walaalkay xasan cabdullaahi culusow shirmaal qoraa xubin baada laashin ah inaan isla su-aashaas weydiiyo isagoo ku cabiraya aragtidiis.
cabdiraxmaan waa mahadsan tahay run ahaantii su-aashu horta waxay ka kooban tahay laba daraf marka waxaan u malaynayaa yacni darafta hore inaysan iqusayn sababtu waxay tahay yani dadkii la soo kulmay ama nasiibka u yeeshay xilligaas berisamaadka lagu sheego kulli aniga ma ihiyo waan joogay laakiin hadda wax weyn ma garan karo oo yani nidaamka iyo systemka u shaqaynayay marka waxyaabihii aan akhristay iyo waxyaabihii aan dhigay laga yaabo waayo dawladda anoo 9 jir dhacday oo 9 sano jira haddana isla markaasna aan magaalada joogno yani magaalada meel ka baxsan joogay calaa kulli xaal marka qurbaha loo soo qaxay in kastoon dawladu jirin haddana qofku dalkiisa markuu joogo ama deegaankiisa waa ku xurmaysan yahay xurmo iyo sharaf milgaya karaamo ku leeyahay markii banaanka loo soo baxana waxyaabo dhib badan oo markaas yani qofka qabsanaya way jiraan oo yani dhaqankii iyo luqadihii iyo isdhexgalkii iyo bulshadii yani wax badan ka qaldan waa sida fanaan cabdi baadil u sheegay oo uu yiri dal aan dalka ahayn waa dareen ku joog laakiin anigu waxaan dhahaba adduunka ma dareen ku joogaba oo dal kaliya ma ahan run ahaantii marka yani qofku waxaan dhihi karaa wuxuu ku xurmaysan yahay oo milgaya sharaf ku leeyahay waa deegaankiisii dalkiisii dhulkiisii dadkiisii dhaqankiisii diintiisii yani wixii uu yaqiinay iyo wixii uu ku soo koray iyo halka uu ku barbaaray iyo halka uu indhaha ku kala qaaday marka nidaam guudo dawliyo ha jiro ama yuu jirin laakiin yani waxa macna samaynaysa deegaanka iyo dalkii afkiya dadkiya meesha aad ku dhalataa macna samaynaysa marka runaantii qurbuhu dhib way leeyihiin oo yani qof kastoo Soomaaliya oo dantu ay biday inay soo qaxdo oo yani maarta nolol soo micin bido ayaa dareemi kara waana wax la wada ogsoon yahay aan isla yahay yani uma baahno faahfaahin uma baahno marka yani sidaas aan dhihi lahaa maasanta aad baad ugu mahadsan tahay waxyaalaha markino aan daneeyo gaar ahaaneed waxa weeye dadkii aan Soomaaliya ayagoo yar Allah waxay ka jiray aan ogeyn iyo inaan isla helo dadkii waagii bersamaadkii aad baa ugu faraxsanaa maanta bidaayada su'aalo badan oo waxa weeye way guuxi doonaan anigoo ku hadlay dadkii hore iyo dadkii dambe marka insha Allah wuu soo noqon doonaa waxaan rabaa inaan qoraa Dr. aqoonyahan Xuseen Maxamed Cabdulle wadaad isla markaasna gudoomiyaha Laashin inaan mayga u dhiibo isaga laftigiisu camalaynaaya waxa la dhahay ninkii markino ka waay aragsan waa badan meel soo joogo wax badan buu soo joogo waxa laga yaabaa daahan ama inaan ka weynaa ama inaan isku soo dhownahay balse kulli waxa way kulli wuxuu noo sheegi doonaa ogaan doonaa cabdiraxmaan aad mahadsan tahay runtii waxaa la yidhaahdaa niman dalmarin dhaayama leh oo macnaheedu noqonayso dhibka dhulkii ka dhacay haddaadan oqoon waxaad ku miisaanta ama aad la meel dhigta ma garan kartid dhibka dhacay intuu la egyahay bulshadaada iyo dadkaaga qiimaha ay leeyihiin ma garan kartid daadan dibadda u bixin runtan waxaan u soo joogay ereyga berisamaad runtii waxaad moodaa in mararka qaarkood la isku khilaafi karo oo qolaba xilli berisamaad u tahay xasan shirmaal waxaa laga yaabaa xilliyada ka mid a inuu berisamaad u yahay anna xilli ka duwan inuu berisamaadka yahay laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa ummadda Soomaaliyeed burbura ku yimid 1990 guud ahaan kaasaan ka soo qabanayna wixii ka horeeyay berisamaadka inuu Soomaali u ahaa burburka maanta haddii laga baxay waxaan nimid dibaddan u soo baxnay waxaan ogaanay Soomaalidu waxay tiraahdo kale mukulaal minankeeda joogta miciil baa leedahay daran dalkeeda heena cabdi baadila iga horeey waa dareen ku joog markaad dhulkaaga joogto waxaad ogaanaysaa nin qiimo leh oo qof qiimo leh oo awood leh oo sharaf leh oo karaamo leh inaad tahay markaad bannaanka u soo baxdana waxaad arkaysaa inaad waxba ahayn runtii dareenka noocaas waxaa dareemi karo dadkii bannaanka u soo baxay oo maanta barbaariye bashiir iyo cabdi iyo xasan ay ka hadlayeen oo daltabiyullahi xasan hadda dadka soo baxay waxay ogaadeen joogtaanka wadankan ay wadamada dibadda ay joogaan inuu kooda uga qiimo badan yahay oo maanta ay daneynayaan dalka inay ku noqdaan laakiin dadka gudaha jooga badankood waxay ku fikirayaan dalka inay ka baxaan sababtu waxay tahay maysan arkin dhul kale iyo meel kale marka waxaan rajaynayaa insha Allah in hadallada aan dhahayno in la ogaado qof walba waxa uu qiimo badan dadkiisa iyo ciidiisa iyo dhulkiisa iyo bulshadiisa inuu ku dhex jiro qiimo ku leeyahay sharaf ku leeyahay karaamo ku leeyahay marka taa in la ogaadaan kula dardaarma dadka gudaha ku jiro maasantiin insha Allah aad baan kaaga mahadcelinayaa markaana waxaan rabaa in yar oo kooban Faysal Cabdisamed inaan maaga siiyo asagoo aan dareenayo inuu ku cabiro su'aasha aan rabo inaan weydiiyo arrimaha samafalka iyo Soomaalida sida uu aragto iyo dadka Soomaaliyeed guud ahaan talaan muxuu siin doonaa
waa mahadsan tahay cabdiraxmaan matoote aad iyo aad ay mahadsan tahay horta raggan meesha fadhiyaan waa rag lasoo xushay meel dheeraa laga keensaday marka waxyaalahay ka hadleen oo dhan waa waxa micnaha saxa ah oo micnaha bulshada inay dareemaan ay tahay marka aniga fikrad ahaan wax yar aan ku darsanayaa waa run qof walba oo adduunkan jooga dhibaato wala kulmaa ama waddan kasta adduunka waxaa la soo maray dagaalkii koowaad dagaalkii labaad waana laga kabsadaa haddeertan aan ku jirno waa 2022kii adduunka waxaa ka jira dhibaato weyn waa la socotiin ruushka iyo Ukraine adduunka dhan dhibaatay keentay arrintoodii dhaqaalihii noloshii ciriiri ku jirta ayadoo wali dagaal weyn aan dhicinin marka annaga dunida saddexaad ku jirno Afrika ka imaanay waxaan ka helnay waaya aragnimo inkastoo haddeertaan macnaha xilliyo kala duwan la soo maray alxamdulilah ayaan dhihi karaa haddeertaan waxaan rajaynayaa insha allah dowladda fiican oo dhalatay dowladda kasii horeysa fiican dhalatay mid kasii fiican dhalatay waan ka basanaynaa waxaan noqonaynaa dad iyo aad adduunka qiimo weyn ku leh waxaan haysanaa dhul aad u qiimo badan bad bari webi batrool shidaal waxaan haysan wadankeena ma jiro waxaan haysanaa dhulka ugu fiican caalamka adduunka laakiin ilaahay baa xigmada ku jirta maadaama aan Soomaali nahay waxaan u fahmi weysanahay ilaahay khayraadkuna si anagoo Soomaali ah taas ayaa maskaxdeeda mar walba soo noqoto sababta wadankan anaga dar joogan raggan lagu casmay waa 5 milyan oo qof ayaa ku nool ma haystaan khayraadkan haysano batrool ma haystaan warshado ma haystaan saasay tahay waxay ku casumeen ama ay ku qaabileen dad badan oo ka dhaqaale badan marka xigmada ku jirta ilaah ayaa garan kara dhinaca kale markaan macnaha samafalka ka hadlay kulay Soomaali macnaha ma dhaay waxaasan qabto waxaasan sameeyay kulay ummadda way taqaanaa macnaha wixii la sameeyay waxaan kamid ahay iyo raggan hadda nala joogan dadka shacabka Soomaaliyeed u damqadaan fadhigan meesha ay u fadhiyaan waxay ku jiraan baraarujinta iyo waxqabadka shacabka Soomaaliyeed umana imaan meeshan ayaga dalxiis iyo baadhi waxay ku jiraan macnaha isha goobaabin abaabul macnaha wax fahamsiin mujtamaca Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay walaalayaashii hawshiina sii wata insha Allah waxaan idin rajeynaa khayr inaan arrimahan ku sii wadano insha Allah maadaama waqtiga gaabsi yahay waan soo koobi doonaa insha Allah su'aalahan waxaan ka dhigi doonaa kuwa kooban magacyada ma sheegi doonaa wax yaad ka dambeeya marka waxaan ka codsanayaa oo ka cudur daaranayaa mid ayada su'aashan wato waxay tahay maadaama atiin qoraa saddex qoraa atiin garbayga fadhiya ma jiraan waxaa sidii qurbaan loo imaado waxaa jira dad hooyooyin ah dhalinyaro badan oo criminal ah ma jiraan wax ugu tala gasheen ama maarkino majaajilo ama maarkino ku wacyigelinaysa dadka ayaga ama heeso ama gabyo ama wax suugaana ma jiraan mar kale aad baad u mahadsan tahay anigu waxaan ka tirsanahay bahda laashin oo iyadoo aad ugu howlan inay wax qorto rag iyo dumarba inay buugaag soo saaraan buugaagtaasi waa kala duwan yihiin wax loogu talagalay bulshada Soomaaliyeed yar iyo weynba waxa ku jira wacyigelin waxa ku jiro war iyo waano wixii u ahaa dalka horumar u ahaa oo dhan ayaa ku jira hadbaana waxay ku xiran tahay buugaagtaasi way badan yihiin qoraalada wax qora dadka wax qora meesha ka tirsanna way badan yihiin sida darteed qofba fikir ka duwan fikirka kale ayuu qoraa marka buugaagta waxay isugu jiraan wacyigelin siyaasad kuwa caruura iyo in badan oo kale ayay isugu jiraan marka waa sida loo kala doorto laakiin annaga laashin ahaan naguma yara dadaal ah inaan bulshada wax gaarsiino naguma yara waana sii wadaynaa insha Allah gaar ahaan dhanka caruurta iyo sidii loo barbaarin lahaa mahadsanid aad baan kaaga mahad celinayaa markaan waxaan siinayaa walaalkayga fadhiya garabka midix cabdiraxmaan aad mahadsan tahay su'aasha xukuma daraayo barbaari bashiira iyiri waa mahadsan tahay insha Allah waxaan u gudbinayaa walaalkayga kale waa isla sidaas kulley laashin haddaan nahay inta madasha fadhida afartiinaba laashin nahay oo baadilnaba laashin isaguna fanaankeena weyn maasha Allah waa xubin laashin kamid idinkuna laashin tihiin oo dhamaanteen laashin wada nahay marka laashin ujeedkeeda dhanba loo asaasa wuxuu yahay yani wacyigelin bulshada in laga wacyigeliyo yani bulshada annagu waxaan leenahay fikirkii aan leenahay oo fikirkan keeni karnaa laakiin awood hirgelinaysay waa aba dawladda haday ahaato iyo haday hay'ad kale guud ahaataba yani annagu fikirkii aan leenahay marka fikirkina waxaan naga go'an inaan kamira dhalino oo bulshadii
يعني قاب كستون وعي جري كرنا هدي دين تهي هدي دغن تهي هدي سوغان تهي هدي يعني إن شاكا لو وعي جري أي تهي هدي أي تهي يعني واحد كستو أي تهي أو بالشدة وبهن تهي يعني وحي أنك أودنو فكرة يعني كلاشين هان وحن يعني مرة من سنة إن كاميرا دالينو إلى يعني مرة مركز أن كسرنو دولة هيرجلسو حق لأي سمرت كاشنا كل أنك إنه حويا إن سيودنو مركز واحد لما كشقينا بوحيين يعني وعي جلين مركز واسر أستاذ كوشيغي واسر برباري وشيغي بشار الحسين ساسن كرع سناي وما سنتي عبد الرحمن aad baan kaga mahadcelinayaa isla hadalnaha hilmaamku ma jiro haddii aan ka tegay fanaanka inuu ka mid yahay Laashin Group waxaan leeyahay karaalo midayada bulshada daawan doontana waa uga cad wardaaraya midayada sababtoo ma arkin oo waa khalad xaggii ka dhacay waxaan rabaa su'aashan aan rabaa soo laabto isla su'aashu soo laabto waxay tahay maxayna kaga aadan maadaama ay bulshada criminalka dhalinyarada Soomaaliyeed ay criminalku aad u badan yahay maxayna kaga aadan ma jiraan wax ma arkin qoraal ah oo aad ka sameyseen Laashin ahaan bismillah runtii Laashin waxay ka shaqeysaa waxay tahay ma aha hal wadan wax ku eg waxaan ka shaqeynaa daafaha dunida dhibaatada Soomaaliyeed ay jirto ama wadanka gudihiisa ama dibadiisa waxyaabahan ka qornaa waxyaabahan qorayna waxa kamid ah matalan markaan rabo qof Soomaali inaan wacyi geliyo oo wadamadan Yurub joogo qofka Soomaali jooga kama qori karo wax kama warqaba meeshan waxaan ku tala galnay dhibka Denmark ka jiro ama Scandinavian ka jiro kale dhibaatooyinka ka jiro dhaqanka ilmaha la qaadana waxa soo dhan inaan qoraal ka sameeyno qorada waxaan xil saarnaa qoraalada dadka ku nool meeshan dhibaatooyin ka jiro wadamada Carabta dhinaca tahriibka iyo xiritaanka iyo tarxiilka iyo wax ku saabsanna waxaan leenahay xubno ku nool wadanka Sacuudiga oo gudaha joogan oo mantiqada Carabta ka warqabaan Australia America waxaan noo joogo xubna noo joogan runtii waa sameynay bugaag badan oo ka qornay haddana waa wadnaa insha Allah hawlaha hadda ka hadlayso inaan kobcino kor u qaadno isla su'aashii maadaama atiin yani dad isu xilqaamay ama urur xoog baaxad intaas leeg alaatiin ma ku soo booqateen ama haysiin tirakoobka bulshada dhalinyarada xabsiyada ku jira tirakoobkooda ama ku booqatiin midda ayada maya maan samayn weli waa runtii waxaa jiro qolyo annaga naga tirsan laakiin waxaa la yidhaahdaa wada shaqaynta waxaan u shaqaynaa dhowr qayb waxaan leenahay dad annaga nala shaqeeyo oo aan la shaqayno oo dhinaca wacyigelinta aan kala shaqayno oon fariimaha u dhiibno oo ayaga access u lah inay xabsiyada tagaan meelaha dhaqan celin dadka loogu hayo ay tagaan dad noocaas oo xataa culimo ay ku jirto wadaadda ku jiraan dad cilmiga bulshada bartay ay ku jiraan oo annaga nala wada shaqeyn naga dhaxeeyo ayaa noogu xil saaran hawlaha inay tagaan wixii fariimo aan rabnana ayagaan u marsiinaa qoraalna waxaan u gudbinaa hadhow wacyigelinta markaan samaynayno ama goobahan isugu imaanayno ama shir baan ku gudbinaa ama qoraalo kale aan ku gudbinaa waa samaynaa hawlo noocaas qaabkaasaan u samaynaa aad baan kaaga mahadcelinayaa su'aasha waxay u socotaa walaalkay alfanaan Cabdi Baadil wuxuu dhahay dhibka waxa wada waa bulshada annagana waxaan ka midnaa qayb bulshadii waxaan jeclaan lahaa inuu noo qeexo oo noo kala dhigo qolooyinka bulshada uu maarkin uu dhahay waa bulshada Soomaaliyeed taas aad ay sahal u tahay bulshada dhibka wada waxa weeye wadan waxa burburiyo waa shacabka siyaasigu waxa weeye waa shakhsi waa 4 qof 5 qof weeye hadday bulshadu isku duuban yihiin ka wada isku duuban yihiin oo ayagu ay hal meel ka soo wada jeedaan oo aan la kala furfurin oo ay hal mabda' leeyihiin oo ay mataqaanaa dhaqankeeni iyo diinteeni ay ku lifaaqaan sababtoo dad waxaan nahay diin ku dhashay dhaqan la af Soomaali ku wada hadla af kaliya ku wada hadla isfahmaya abti iyo adeeri eedo isu wada ah marka waxa weeye waxaan ka wadaa dadkaas ayaga ah haddii ay Soomaalidu isku duuban hadday isku duuban yihiin oo hal meel ay ka soo wada jeestaan dalku waa noo hagaagaya laakiin ta igu daranoo maanta aan riwaayad ka dhigay waxa weeye fanaaniintu waa iska riwaayado badan yihiin madaxweyne marka la doorto madaxweynahaas la doortay inay caleemasaarka Soomaali u sameeyaan waxba kala qarsan mayno inay u sameeyaan yaa wanaagsan laakiin anigu fanaan baan ahay inta aan ka qayb galay markii madaxweyne la doorto yaa caleemasaarka waxaad arkaysaa dad u wada qaas ah oo dad ninkii ka socda Soomaalinimadana taa kuma jirto waxa wanaagsan xitaa ayagu inay dhahaan war ninkii waa la doorto Soomaha war Soomaali oo dhan adika idin talaa hal abaabulo marka isku duubnida taasan ka wada oo number 1 ah
inta kalena dib aan u dhiganayaa insha allah. abwaanka aad baan uga mahadcelinayaa su-aashaas waxay ahayd waa su-aal activitiyaasha dadka loo yaqaano ama dadka bulshada horbooda oo wax u qabta dhagahooda iyo maankooda ka guuxays. runtii wuxuu taabtay nabar aan joojiyey. waxaan ahaan jiray dadka abaabula shirarka ama maarkin oo xiriirya muddo laga joogo 6 sano waan joojiyey markaan u arkay siduu u sheegayo in reerkii madaxweynaha noqdaba reerkiisa uu maarkin horbooday bulshada ama ra'iisul wasaaraha noqoto ama madaxweynaha noqoto. taayada waagaas baan joojiyey 6 sano ka hor. waxaan u joojiyeyna waxay ahayd waxaan daneynayaa ama bidayey ninka Soomaaliga ah ee madaxweynaha wuxuu u yahay 15 milyan ee Soomaalida magaca Soomaalida ku abtirsata laakiin ma aha jifo hoose iyo kooxo ama gurbaysi uma aha. marka waa la qabaa fanaanka iyo waliba maarkin khiyaarta meesha beenaha fadhiya. ilaahayna waxaan jeclahay niyadeena iyo maarkin ummadda Soomaaliyeed inuu isku mid ka dhigo sidaan uga gudbi lahayn insha Allah ilaahay inuu garashadeeda na tuso midayda uga leeyahay maadaama waqtigu uu cariiri yahay marti sharaftana waqti aysan hayn meel kale oo dad balama kale ay leeyihiin. waxaan rabaa inaan barnaamijkanaga aan ku gunaado waxa midigteeda fadhiya Bashir Ali Xuseen oo ah abwaan isla markaasna ah fanaan. waxa kale oo asagana fadhiya xubin ka mid ah Laashin isla fanaan Soomaaliyeed Cabdi Baadil. waxa dhinaca midigta fadhiya gudoomiye Laashin baa fadhiya Xuseen. waxa kale oo fadhiya walaalkay Xasan Cabdulle baa fadhiya asagana. waxa fadhiya Samafale Faisal Karate isla markaasna ah saxaafi Soomaaliyeed iyo waliba anigoo barnaamijkan daadinayo ah Cabdiraxmaan Matoote oo ka socda Dansom TV. daawadayaashana daawanaya waxaan leeyahay tan iyo kulanti dambe. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa Dansom TV.